waxaa maanta degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho lagu qabtay ziyaaradii 117 ee weligii Ilaahay Sheekh Muxyidiin Macalin Mukarram. شغلكم ثم صلاة الله على ذي الفخر محمد وآله ذي الغرر شغلكم زيارة maanta waxaa ku casuunaa jamaacada faca weyn ee Raashi Cali Cilmi Yare iyo mashaayikh kale. intii ay socotay ziyarada ayaa waxaan si gaar ah ula hadalnay awlaadii iyo xertii sheekha ka farcantay ayaga oo nooga warbixiyeen taariikhda sheekha iyo ziyaradaba. waxaan dhex joognaa ziyarada sheekheeni waalidkeeni murabbigeeni Sheekh Muxyidiin Macalin Mukarram
oo ah aabihii mashaayikhiintii mashaayikhdoodii ee dalka Soomaaliya waxaan dhihi karnaa Soomaaliya guud ahaan sheekhoodii inuu yahay ayaan dhihi karnaa waa aabihii cilmiga laga dhaxlay Sheekh Muxyidiin Macalin Mukarram ziyaaradiisii waa 107 sano ayaa laga joogaa waxaa la xusuuyaa la ziyaarinayaa 107 sano sheekha waa la yaqaanaa taariikhdiisii caam waaye uma baahna faahfaahin dheer uma baahna mashaayikhiinta maanta ka soo qayb galeen waxa inoo yimideen mashaayikhiintii shacali cilmi yare ayaa meesha noo yimideen reer Sheekh Xuseen Cadde reer Sheekh Abubakar Macalin reer Sheekh Ali Muumin Sheekh Abdullaahi Minhaaj iyo Sheekh Ahmadi Sheekh Abdi ayaa noo yimideen ma sha Allah taariikhiisu waa soo koowaa sheekha cudur ma lahayn cawadii 23 ramadaan ahay bacda taraawiix waxay dugtay sunnada watriga rakaca u dambeeyay meesha xaadir waxa ku ahayeen Sheekh Muxyidiin Sheekh Maxamed Sheekh Muxyidiin Sheekh Usmaan Sheekh Muxyidiin Sheekh Ali Sheekh Muxyidiin Sheekh Xaakim Sheekh Muxyidiin farto xanuunin sheekha bisha oo la joogo 19 Sheekh Maxamed Sheekh Muxyidiin wiilkiisii oo ilamaad ahay asuu dhiibi salaada taraawiix Sheekh Muxyidiin Macalin Mukarram ayaa u khidmeeyay waqti badan diinta Islaamka asiga oo soo saaray jiilal aad u fara badan iyo mashaayikh aad u waaweyn Maxamed Cabdi Cadde Hadiyu Diin TV magaalada Muqdisho